mas-uuliyiinta degmada magaalada Berbera ayaa muddooyinkii u dambeeyay si weyn ugu howlanaa sidii ay maamulka u daadejin lahaayeen labada xaafadood ee loo kala yaqaano xaafadda magaalo cad iyo xaafadda Fiilanta ayaa maanta waxaa loo sameeyay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen cusub. xaafadahan ayaa dawladda hoose ee magaalada Berbera waxay ugu dan leedahay sameeyntooda sidii ay toos ula shaqeyn lahaayeen maamulka sare ee dawladda hoose una toosin lahaayeen wixii dhaliila ay arkaan. duqa magaalada Berbera oo si dheer ugu dheeraaday doorashada halkaasi ka dhacday iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay qabtaan ayaa ku tilmaamay in ay tahay in arrinkan yahay toosin iyo sidii bulshadu markaliya wuxuu wada qabsan lahayd ee wax lagu sugi lahayn oo kaliya maamulka sare ee dawladda hoose. bulshada xaafadu waxaan ka doonaynaa gudoomiyaha iyo gudoomiye kaxeega waxaan u sheegaynaa waxa uu yaqaanaa inta midiga loo yeedho xashiishka in la tuso yiraahdo xashiishkii dawladda hoose nagama qaadin waxaan noomay biyanama siinin waxa uu yaqaanaa iyagu inay ceebeynayaan nama ceebeynay sida waana toosinaysa waxaa lagaa rabaa inaad tagto inaad tagto oo dabadeedna aad meesha tusuur ka dhalanayo bulshada xanuunka uga imanayo soo eegto intaad kamarada soo kaxaysanin inaad xafiiska arrimaha bulshada ee dawladda hoose tagto oo maamulka gaarsiiso oo aad tiraahdo xashiishkiina lagama qaadin nooma imanin cashuurtaan bixiya maxaa cashuurta laga qaadina tahdo aadna way cashuur bixiya noqotaa. xogayaha dawladda hoose iyo madaxa waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa iyaguna si weyn uga hadlay faa'iidada kulamada noocan ay leeyihiin iyo in xaafaduhu ay yeeshaan maamul kala dambeyn ah. xubnaha kaydka ayaa lagu kala saarayaa marka dambe tirada xubnaha la dooranayaa waa 7 xubnood iyo 5 inta u dhaxaysa maanta sabta 7 qaadanaynaa haddii alla ka dhigo haddii ay jiraan qaybo ka mid ah xaafadda xubnaha howlwadeennada ay waxay hoos imanayaan guddida xaafadda halkaa qodobka labada xaafadood iminka waxay leeyihiin guddi hoosaadkaasi waxay noqonayaan guddi ka hoos shaqaysa guddida maanta la dooray ka noqono ilbaxnimada iyo bisaylka dadweynaha reer Berbera ilbaxnimada bisaylka iyo dadaalka maamulka heer degmo ee arrintan maamulaya iyo maamulka heer gobol ee hadda fadhiya ee hal iyo habeen garab taagan. barasaabka gobolka Saaxil ayaa si weyn u soo dhaweeyay muddooyinkan u dambeeyay howlaha horumarineed ay ku dhaqaaqayay dawladda hoose ee magaalada Berbera taasi oo ku tilmaamay inay ka mid noqon doonto dawladaha hoose ee Somaliland ugu horeysa. doorasho cadaalad u dhacday saad la wada socotaan ee arkaysaan gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Berbera culays saarnaa uu maanta iska ridayay badhbu maanta iska yareynayay maanta xilkaasi wuxuu ku soo wareegay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka la doortay ee xaafadda oo ka mid ah 5 xaafadood ee magaalada Berbera maanta xil weyn baa saaran iyo ka qudhadooda maanta waxa la doonayaa cadaaladda aad ku timaadeen meesha een ahayn reernimada een ahayn qabyaaladda een qolo ahayn ee cid jeclaysi aan ahayn inaad ku shaqaysaan inaad xaafadda kaga warhaysaan hadday tahay amniga caafimaadka waxbarashada dadka baahiyeysan dadka xanuunsanaya cabdi gudoomiyaha golaha deegaanku 5 xaafadood qayb kamida 4 xaafadood hore maamul lahaayeen qaybtii kamid oo maanta maamul daadajinta u sameeyana wuxuu iska tuuray culays weyn. duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa muddadii uu xilkan golaha deegaanka uu gudoomiyaha ka ahaa waxa uu ka talaabsaday waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee degmada Berbera ay u baahneed ee asaasiga ah sida kor u qaadida waxbarashada caafimaadka oo hadda u qorsheysan sanadka cusub ee 2017 ee furdeen ugu soo haya in ay si weyn uga qayb qaataan. Wayaasin Jaamacali Hawanaag News magaalada Berbera.